نولا تطبقون أو سنوات كهر تاريخ ذي أنت هسي صوتها لكن وحنا نقطع التاريخ ذي عصبي وحي بلابنتي لبعضن كي شراي كل يستيت بقول يتدبي يستيتك وحاول لك تشوجا بقول يصدن سنوات maalintaas waanu rasmi uga mid noqonay maxkamiyadihii Ingiriiska laga bilaabo maalintaas Somaliland waxay ku lahayd maabka dunida buqcad u gaaray ku lahayd dal gaar ah ahayd laga bilaabo maalintaas maalinta waxa ka soo wareegay 130 sanadood oo buura لكن نقعد حسي ما إنه بقول يصدق سنوات وحنا حسينا بقول جوري حسينا ويصدق السنوات باب أين ما بينه قارة كل هين عالم وحنا كم ذا هين ما في سوماليا بقول ككله سوماليا دوني بيمتاجني وما كعالم بوتي waxay maanteena xusno 130 guur ayadina xusno nasiib daro maanteena xornimada qaadanay shucuurtii maalinta taagneed aawada ayaa waxaynu gaarnay go'aan oranaya inaynu ku biiro Soomaaliya qaybtii ahaan jirtay maxkamiyadda Talyaaniga inkastoo runtii sidii aynu u qorsheynay aan la isugu darsan oo xagga sharciga markaad ka eegto isku darsigaas oo aan sharci ba ahayn sida doonto baa ku bilaabantay haddana muddo 3 sanadood qayb baynu ka ahay su'aasha meesha taala waxa weeye maxay ahayd shucuurtii markaa taagneyd ee nagu kaliftay inuu xornimadeena hantinay inaynu cid kale u dhiibano oo ku tarsano xilliga dadka carab badan ayaa intii haysay halgan dheer baa la soo galay gumaysigii markaa joogay dadku waxay jeclaayeen in shanta Soomaaliyeed ay isu timaado inay Soomaali noqoto wadan maxaan ilaahdaaye cudud leh oo lagu tashado geeska Afrika oo muwaadiniintu u wada siman yihiin oo u horseeda barwaaqo ay himiladu ahayd nasiib daro 30 sanadood ee aynu qaybta ka ahayn Soomaaliya himiladeeni iyo hamigeeni muu xaqiiqoobin halkii aynu ka filaynay haru socod iyo barwaaqo iyo cadaalad iyo sinaan ayaa waxa inagu dhacay hadaadis iyo takoor iyo burbur iyo dil iyo dhac runtii dadkeenu ay u adkaysan waayeen oo ay ka dhiidhiyeen horaantii 80-aadkii halgankaas oo ku dhamaaday xasuuqa iyo burburinta hantideena iyo magaalooyinkeena markii dambana aynu ka xoroonay 1991 markii Burcali isugu tagay dadkeenu markay dib u milicsadeen wixiina soo qabsaday waxay go'aansadeen inaanay taasaanayna anfacaynin aynu la soo noqono xornimadeennii aynu iska dhiibnay inagoo xora 1960 maalintaas ay noo bilaabantay qaybta labaad ee taariikhdeena aynu maabka aan ku naal Somaliland ka hor intaynan xornimada qaadan iyo kadib markaan la soo noqonayba cid ay ku haysay dhibaato ma jiro cid ka cabanaysa Somaliland oo dhan sadib bay nagu haysaa ma jirto runtii Somaliland gobolka
geeska Afrika wuu ku baraaray hadday nabad noqoto xasilooni harumar dhinac kastaba deganaansho dhinac kastaba wuu ku baraaray intii gobolka Somaliland cid waliba waa inay soo dhaweyso wax Soomaaliya ay Somaliland uga baqataa ma jiro waxay Djibouti uga baqataana ma jiro waxay Ethiopia uga baqataana ma jiro kaalin weyn baynu ka galay ilaalinta nabadgelyada xasiloonida ku dhaqanka sharciga caalamka geeska Afrika Somaliland waxay buuxisay ama buuxisaa wax kastoo shuruudo looga baahan yahay wadan madax bannaan oo bahda caalamka ka mid ah haddii ay timaado xagga maamulka Somaliland waxa ay dawlad ay dadku doorteen baarlamaan ay doorteen madaxweyne ay doorteen madaxweyne xigeen ay doorteen xubnaha golayaasha deegaanada oo ay doorteen waa wadan isagoo xuduudihiisa mid bada mid bariya iyo mid qiraba awood u leh inuu ilaashado awoodna u leh inuu heshiisyo la galo wadamo hay'ado shirkado cid kastaba Somaliland inuu yahay wadan jira muran kama taagna maanta 26 sanadood nagama lumin waxa la inoola macaamilaa wadan jira inaynu nahay haddaad internetka gasho aad Google garayso Somaliland iyo maapkeeda iyo taariikhdeeda meel walba kaaga soo baxaysa lagu oran maayo waa laga waayay kuma jirto way jirtaa waana jiri doontaa insha Allah biidhnillaahi alkariim idin sheegi maayo intiina halkan joogta inta shaashada inaga daawanaysa ee laga yaabo inaanay xogagaal u ahayn Somaliland waxaan u sheegayaa Somaliland waxay leedahay ciidankeeda iyo baasaboorkeeda iyo lacagteeda iyo astaamaheeda ay leedahay sida qaran oo kale calankaas iyo xadkeeda iyo lacagteeda iyo dadkeedana waxay awood u leedahay inay difaacto ayay awood u leedahay marka qaybta waxa la yiraahdaa in yaro siyaasiyiina ayuunbaa doonaysa inay Soomaalida kala googooyaan oo Somaliland ku khasbaysa inta kale inay ka goobo sidaa maaha maalintii la go'aansaday in lala soo noqdo calankeenii iyo xornimadeenii 1991 waa loo dhamaa maalintii aftida laga qaadayna 2001 in yaroo meel fadhiisatay umay go'aamina dadka go'aansaday sanadkiina soo dhaafayna waxaan ka qaadnay dadka petition ma ka qaad 1 milyan iyo 21,000 oo qof baa saxeexay oo reer Somaliland inay caalamku aqoonsadaan Somaliland marka Somaliland maaha riyo maaha in yaroo gobol oo cid xurto ku haysato waa wadan dadkiisu ay u soo halgameen dadkiisu doorteen ku fadhiya rabitaanka dadkiisa caalamkana waxaynu marti uga nahay inay tixgeliyaan rabitaanka dadka reer Somaliland dambaa u jirta sidoo uu sheegay wasiirkii iga horeeyay wasiir dawladda xilli waxaynu ku
كلنا هاي وكيله كوب وحي كوب من الشرفات بابا دورية لبعضهم ودم كلنا ودن كستين كلنا هيدا ولما عاملا ودن كا وكدسي هاي حفيزه أم بوكيل كوب جوا لما يلاحظوا ودن حلا مديني أم بسوماليا كم يتوح لنا معاملة سدي ودن شرب على ولا معاملة وحنوتي جعلنا كنا نحسه كارنت وين يدك غرب جوجي كجي جيران يرسل سوماليلاند اسمها دلك يكرو قاعدين دمج عيسى يإلى أنت ما تبناني سيدولي اعتراف عيسى هنجعلنا يمكن هكذا إنه صعب إنه نكسرنا الرئيس المالي هذا الشيء واحد اللي وديه الدين تصور اللي اعتراف وين حلا بعطيك كاسمية دوني سين مين إذا دارين wax kastoo wanaagsanba waqti buu qaataa miro kastoo macaaniba waqti bay bislaadaan Somaliland xurnimadeeda iyo madax bannaanideeda way ka qiimo badan tahay 26 sanadood 260 sano sugan gidigana runtii xil bay naga wada saaran ما دولة دوكرية وزارة دارينها تبي دوكرية نماها حوشة هالكان كسي ونو سيدا إنه ونو هدين وسي ونو إن شاء الله بإذن الله الكريم مدة فوقين بنكون رجوين يانو إن نحيل دونا اعتراف أي مشاهدين أي حق سنة أدعو ما سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته